General Liban Cali Yurub oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa digniin u diray askarta iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa ciidamada iyo saraakiisha dawladda Soomaaliya uga digay inay ka qayb qaataan colaadaha sokeeye iyo arrimaha siyaasadda. Sidoo kale gudoomiyaha uu sii hadlayay ayaa ciidamada u sheegay in hawshoodu ay tahay sugidda ammaanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Askarigii ama sarkaalkii wax intaa ka badan ku kacaana tallaabo adag ay ka qaadi doonto maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa waay sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur in uu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso in uu ka qayb galo xaraan ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganay dhan marka waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxo aan maqleynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socda hadii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad ammaanka asugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay ammaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas'uuliyadda intaas waa bis wax kale laga maro ammaanka sug dawladda cid allaal cid ay keensatana waad ku qasban tahay inaad dawladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb galin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha naqato mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya marka dadka u dhaxeys maxaa sameynaysaa waxaad sameynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas'uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugtaa mas'uuliyad ay tahay marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo. Yusuf Maxamed Axmed Galmudug TV